warbaahinta maxalliga kala duwan ee ka hawgasha gudaha magaaladani Gabiley oo maanta tijaab ku qabtay gudaha magaaladani Gabiley ayaa si adag u qaatay shirweynihii saxaafadda Soomaaliland ka qabsoomay maalintii shalay ahayd caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland halkaas oo lagu doortay hoggaanka cusub ee hogaamin doona ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier waxaana suxufiyiinta gobolkani Gabiley ku baaqeen kulan degdeg ah oo warbaahinta dalku ay isugu iman doonaan gobolkani Gabiley suxufiyiinta gobolkani Gabiley oo amurahaasi ka hadlaysa waxa hadaladoodii ka mid ahaa dhammaanba warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha magaalada madaxda gobolka cagaaran ee Gabiley maanta waxay halkan isugu yimaadeen sidii ay u muujin lahaayeen dareenkooda ku aadan shirkii gacan ku rimiska ahaa ee ka dhacay magaalada Hargeysa isla markaasina lagu afduubay saxaafadda Soomaaliland kaasi oo lagu burburinayay ururkii saxaafadda Soomaaliland ee Soldier oo xubno gaar ah ay si toos ah u baabiyeen isla markaasina ay si afduuba ugu sheegeen in kulan ama shir gacan ku rimisa ay ku doorteen hoggaan cusub waxaan maanta halkan isku nimi ama shirka jiraayadana ku qabanay hotel booq aan isku nimi anagoo ah warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha guud ahaanba gobolkan Gabiley labada arrimood oo kala ah mid waa suxufiyiinta shirweynihii suxufiyiinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maalinkii shalay ahaa ka dhacay caasimadda dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahaa isagu mid aan loo dhanay waxaanu leenahay shirweynahaasi ma aan ahayn mid loo leeyahay wuxuu ahaa mid in gaar ah ay dhigatay ama ay qabsatay umanu qabsoomin si xor iyo xalaal ah waxaanu halkan ka cadeynaynaa in gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland Soldier uu afduubay shirweynahaasi maanta waxaan halkan isugu nimidnay haddaan nahay warbaahintii gobolka Gabiley inaanu mowqifkeega ka dhiibano shirkii saxaafadda ka dhacay magaalada Hargeysa shirkaasi aan u aragnay inuu ahaa shir afduuban oo si sharci darro ah loo qabtay inuu warbaahinta Soomaaliland u dhannayn oo uu ahaa shir uu soo dhoodhoobtay gudoomiyihii Soldier Xuuto si isaga mar labaad loogu doorto gudoomiyaha ururka Soldier mana ogolin arrin la soo dhoodhoobtay wuxuuna ahaa shir warbaahinta Hargeysa kaliya una meesha isugu yimaadeen iyo wariyaal dan gaar ah laga lahaa ee saxaafaddii madaxa bannaaneed ee ka howlgelaysa gobolada Soomaaliland umay dhannayn inay gebi ahaanba qaadacaan shirkii xaaraanta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Hargeysa laguna dooranayay gudoomiyaha Soldier Xuuto kama wada qayb gelin suxufiyiinta Soomaaliland oo dhan waxa uu kaarirka siiyay in gaar ah oo og yahay inay isagu siinaysay codkiisa ama intii isaga kaba qaad ka wahayd la dhaahdaba annagu waxaan leenahay haddaan nahay wariyaasha ka howlgala gobolka Gabiley ma ogolin walaa gudoomiye Soldier aan ogolayn walaa shirkii shalay baan ogolayn waxa kaloo ugu baaqaynaa warbaahinta Soomaaliland ka howlgasha ee madaxa bangabigeeda inaan wariyaasha gobolka Gabiley ay shir weyn ku qaban doonaan gobolka Gabiley taasoo intiqaadkan iyagu fidin doonaan waxaan halkan kaga soo horjeednaa isla markaana shaacinayna inayna jirin wax la yiraahdo ururka suxufiyiinta Soldier isla markaana ay ku baabaaday shirkii gacan ku rimiska ahaa shirkii maalinkii shalay toole ka dhacay sidoo kale warbaahinta ka hawlgasha gobolkani Gabiley waxay si adag u cambaareeyeen xariga laba wariyo ka hawlgali jiray gudaha magaalada Boorama waxaana xukuumadda iyo cid kasto ka dambaysa xarigoodaas ugu baaqeen in si degdeg ah xoriyadoodii loogu soo celiyo labada wariyaasha gobolkani oo amurahaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii ka mid ahaa laba wariyo oo ku xiran gobolka Awdal magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama waxaanu leenahay hal loo soo celiyo xoriyadoodii labada wariye haddii ay qalad ku jiraan hal halkeena maxkamadda sharciga si loogu qaado si sharciyo loo mariyo sidoo kale waxaan aad u cambaareynaya xariga lagula kacay labada wariye ku xiran gobolka Awdal ee maamulka gobolkaasi ay xireen waxaan leenahay wariyaashana sida ugu degdeg badan leh xoriyadoodii dib loogu soo sida foosha xun ee ula dhaqmay wariyaasha tacadiga uu kula kacay ku xiran gobolka Awdal aad iyo aad baan u cambaareynaa aanu mar labaad iyo mar saddexaad ka cambaareynaa xariga lagula kacay wariyaasha ku xidhan gobolka Awdal ee magaalada Boorama oo sifo sharci darro ah loogu xidhay gobolkaasi Awdal waxaanu leenahay hal la sii daayo xoriyadooda hal loo sii daayo guuleed Cali Ibraahim ka case SAB TV gobolka Gabiley